wax badan ka ogow gantaalkii caalamku ka qayliyey ee Iiraan ay isticmaashay maanta ay ku riday Israel. Gantaalkan waxaa lagu magacaabaa Khaybar Kharam Shahar. Gantaalkani waa gantaal xawaarihiisu oo aad u dheereeyo oo lagu qiyaasay inuu 16 jibaar codkiisa ka dheereeyo. Halistiisa waxaa kor u sii qaadaya markii la ogaaday inuu yahay gantaal meel fog laga hagayo sida daroonta oo marba lagu aadinayo meeshii la rabo. Miisaankiisa ayaa isaguna aad u culus, waana gantaal ka kooban gantaalo badan oo isku guda jira oo markuu gaadho meeshii loogu talagalay kala hadhaya oo intaas oo gantaal oo qaybsamaysa oo meelo kala duwan oo badan ku dhacaya. Sidoo kale gantaalkani waxa weeye gantaal aan la iska difaaci karin oo gantaalaha lagaga hortago gantaalaha ee hawada ku qarxiya aanay ogaan karin inuu hawada soo galay. Sidoo kale waa gantaal afkiisa hore lagu xiri karo qaraxyada kala duwan ee caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ee atom bombka nuclear-ka. Gantaalkani waa gantaal 2000 oo kiiloomitir gaadhaya. Waa gantaalaha ridada dhexe. Sideedaba gantaalaha waxaa dadka khubarada ee falaya ay ku tilmaameen in gantaalku haddii uu gaadho 1000 iyo wixii ka hooseeya loo yaqaano gantaalaha ridada gaaban. Hadduu 2000 ilaa 2500 gaadhana waa gantaalada ridada dhexe. Marka gantaalkani wuxuu noqonayaa gantaalaha ridada dhexe. Haddii gantaalku uu 2500 ka badan yahay 5000 iyo wixii ka sarreeya gaadhana waa gantaalada ridada dheer ee qaaradaha u kala gudba. Marka gantaalkani waa gantaal 2000 oo kiiloomitir gaadhaya bariga dhexe oo dhan iyo wadamo bariga dhexe ka baxsanba gaadhaya. Runtii waxaa laga walwalsan yahay maadaama gantaalkani yahay gantaal Iiraan iyadu ay samaysatay in aan la garanaynin inta xabbe ee noocan ah ee gantaal ee 2000 oo kiiloomitir gaadhaya ee Iiraan haysato. Waxaana dhici karta gantaalo kale oo aan la ogeyn in ay haysato maadaama ayba noocan samaysatay. Runtii dagaalkii weji kale ayuu yeeshay. Hub aan lagu xisaabtamayn baa meeshii soo galay, waxaana uu noqday mid walwalku marba marka ka dambeysa uu kor u sii kacayo. Waxaynu ogaan doonaa maalmaha soo socda bal in hub cusubi dhanka Iiraan iyo dhanka Israa'iilba uu ku soo biiro, in wadamo cusubi ay ku soo biiraan, in hubab qarsoon aan la ogeyn uu ku soo biiro, in marka dambe cadhadu ay gaadhi kartaba in halistii nuclear-ka loo sii dhowaado. Runtii ilaa iyo hadda Mareykanku wuxuu iska gaabinaya iska ururinaya inuu dagaalkan ku biiro isagoo diidan in dagaalku sii ballaadho. Waxa uu qabtay Donald Trump maanta in uu 2 isbuuc u qabto bal dagaalkan in ay ku soo gabagabeeyaan Iiraan iyo Israa'iil. 2 isbuucna waa wax aad u fara badan. Ilaa hadda wuxuu socday 7 maalmood. Haddii 14 casho oo kale uu sii socdana wuxuu noqonayaa inuu 21 maalmood socday bil uu qarka u saaran yahay. Runtii halistaasi waxay u sii kordhaysaa marba marka ka dambeysa haddii aan dagaalku hadda halka uu marayo lagu hakinin. Waa dhici kartaa hadduu dagaalku si daba dheeraado in wadamo badan ay ku soo biiraan. Barnaamijka dambe saad ula socotid. Assalaamu calaykum.